kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda ee Hurfadhi Media gangan caalamka oo dhan daawadayaal qodobada aad ku daawan doontaan wararkeennana waxa ugu weyn Turkiga oo si kulul uga jawaabay hadalkii dawladda dalka Sacuudi Carabiya ku diiday inay soo gudbiso dadkii loo tuhunsan yahay inay abreen dalkii Jamal Khashoggi qodobada kale daawadayaal wararkeena aad ku maqli doontaan waxa kamid ah hanjabaad markaas ku saabsan in jeelka loo taxaabi doono madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo soo baxay iyo in xilka qaadis lagu sameeyo doono arintii ka bixitaanka Britain iyo Europe oo kol kale calqarad horle la timid iyo Britain iyo oo markaasi ay xasarad xooggan ka tagantahay midowga Europe oo hanjabay qodobadaas iyo kuwa kale daawadayaal ku maqli doontaan wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda ee Hurfadhi Media gangan caalamka oo dhan waa dabcan 11 bishii December waa maalin masaalisa waa 2018 mar kale iyo barnaamijkeena falanqaynta dunida iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda aan ku bilaabay markaana qaybta koobaad aan ugu horeysiiyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mar kale ka gudoomay waraqaha dantiranimo safiirka dalkaasi Turkiga uu fadhiyo doona ama loo soo magacaabay dalka Soomaaliya ee Turkiga ka socda Maxamed Yilmaz arintan ayaa dad badan oo aad inoo soo weydiiyay Hurfadhi Media isla markaana aad ugu jaawareereen ayadoo horeyeen u oogeen in wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya ninka la yiraahdo Axmed Ciise Cawad uu horey uga markaasi gudoomay waraqaha aqoonsiga safiir Maxamed Yilmaz sharciyan ama qaanuunka caalamiga ah ee dawladaha ee Geneva Conventions la yiraahdo aan u maleynayo dadka qaarkood inay daawanayaan inay aqoon u yeelan karaan ama ay eegi karaan waxa uu qorayaa horta safiir dal marka loo magacaabo hal mar ayaa waraqaha laga gudoomaa wasiirka arrimaha dibadda uu ka gudoomi karaa madaxweynuhu uu ka gudoomi karaa mar walba waxay ku xiran tahay sida dalka loo ciseenayo ama uu nidaamka uu dalkaas labada dal ay kala joogaan kolka waxyaalaha mamnuuca waxa kamid ah safiirka la soo magacaaba ilaa inta waraqaha danjiranimada laga wareegayo wax kulan ah oo ka baxsan safaaradda gudaheeda oo uu gali kara ama dalka kulamo uu ku qaban kara ma jirto madaxda kale ee dalkana inta waraqiisa aqoonsiga laga wareegayo wax kulama lama yeelan karo siyaasiyiinta lama kulmi karo cid kasto ay tahayna wax kulana lama sameyn karo waana standardka dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan warbaahinta xataa lama hadli karo tiisa dalkiisa iyo ta dalka uu joogo midna warbixin ma sii karo ilaa inta la aqbalayo waayo wali danjiraha rasmiga dalku ma aqoonsan sida daraadeed kulankii uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda wuxuu ahaa kulankii aqoonsiga waraqiisa taas ayaana cadeynaysa in markaas safiirka uu wasiirku ka gidoomay waraqiisa hase yeeshee madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo doonaya inuu markaasi u muuqdo inuu markaasi doonayo inuu khaladaadkii hore saxo isla markaana laga yaabo in markaasi dad badan oo Soomaaliyeed aad Turkiga runtii iyo markaasi abaalka shacabka Soomaalida ku leeyahay inay kala hadleen ama runtiiba ay dabcan gaadhay warbixinaha iyo waliba falooyinkan ka diyaarinay ayaa arintaasi